bismillaahi raxmaani raxiim maantay waxaa guulaystay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaa laga guulaystay dawladihii shisheeye oo rabay ummadda shacabka Soomaaliyeed iyo dalka iyo diinta waxa uu danka ah in ay misleading ku sameeyaan ayaa laga hortagay ma aysan guulaysan baarlamaanka Soomaaliyeed ma uusan guulaysan farmaajo waxa guulaystay shacabka Soomaaliyeed iyo rabitaankoodii waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha Soomaaliyeed oo guul la taaban karo maanta meeshan ka soo hoyay taas uu ku kasbaday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay taageeraan oo ay madaxweynahooda garab istaagaan si dalkan musuqmaasuqii hareeyay 26 sano dhibaatadii baahidii baabi'i mushaar la'aanta ciidanka haysa si looga hortago wax kasta oo xasiloonida dalka dib u dhibi karo waxaa laga rabaa ummadda Soomaaliyeed in ay ulyadiir noqdaan in qabyaalada laga tago qarannimada loo istaago haddii ay tastaaso dhicin waxa imaan doonta waxyaabuhu cadawga damacsan yihiin maanta halkan gabran waxaan ku iri dalkan waxa iskale Soomaali go'aankana waxa gaaray Soomaali danaha Itoobiya iyo danaha shisheeye dalkaanu kama shaqeeyaan wallahi konton qof oo Soomaaliya 100 qof ayaa ag taagneed dad ayaa iga dhiciyay yiraahdeen wax uu ku jawaabo waa aqoon waaye markii madaxweynaha la doortay 184 cod uu helay gabar uu ka soo baxay qolka taas waxay ka turjumaysaa in aan ka reyn karno cadawga Soomaaliyeed Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo